dhalinyarada qaar ayaa samaysta shaqo abuur u gaar ah si ay uga badbaadaan shaqo la'aanta haysata da'yar badan oo wax baratay. Markii uu dhameeyay dugsiga sare waxa uu qaatay Axmed Cali Xuseen go'aanka ah inuu noqdo qof shaqaysta. Hadda waa sawir qaade macaamiil badan leh, shaqadana naftiisa ka dabara. Shaqada waxaa bilaabay 2020 bilaabay. Marka xogaha muddo waa ku jira. Alxamdulillah niyo waa shaqo xun maaha, waa shaqo aad u wanaagsan. Marka xamar joogis yartaa hybridkan ayada ku joognaa. Marka maxaa ku dooratay inaad ka shaqayso cameraman-nimo? والله إني هو أنا وقتي قاس وحيد وقتي سكندري آدمي مركا هدي مركي سكندري آدم من هذا أنت بدن ليرت مقدشو هنا بجاج أما كاميرا وحياة نوع عصير فلها إسك بدن يا ما إلكتريكال وحياة كورنتويك وحياة أنت بدن إسك بدني إسك كل مشغولان مركا أني هوب كي هيد مركا كاميرا إسك جتي سيدي إسك غاتي كدمنا أيضا ما إسك شقيستا سيدا معنا هذا يجي حياة اللي ذا كلا دك صورة أو قادنا وحياة عروسيد وكلا أيجنا حلف ذا وكلا حياة برنامج نوع عصا قبلنا مركا والله حد يكره شقة الله بهاي اللي بلدك هاي النايضة والله بهيدكو أنا جنب اللعبة مركي أنا جنا أباهن هاي وأنا مرول بقى كاميرا هذه نص ورنا لو قاضي مرول مقالة أباهن أوجاني لبهيد ده أوجاني مركز مركز أوجد أمريكا أنا كاميرا أوجته عند واحد أباهن بالشين أباهن أركي سيدي أمريكا عن الهيرتنا بدنا وأنا إلى مد أي جنا ووضع الشقيان نظام نوع عصوا أمريكا والله صورة صاحب شيء سوايو labada sawir hal door saddex sawir hal door mostly anaga saas ku shaqeynaa sawirada saas oo qofka intuu raasaga galaya laakiin waxa noo go'aan ku shaqeynaa intaas waaye wallahi dhalinyarta way si badanooyaan waayo magaalada shaqo la'aanteeda iska sii badanayso marka ayagana mar walba sanad walba ardaa soo qalin dhalinyarta inta badan waxa mashquul waa waxbarasho in laga mashquulo waxbarashada ay ka soo baxaan inta badan iskuulada soo dhameeyaan jaamacad iyo iskuulka inta u dhaxayso xogaa waa mataqaanay gaab oo iska yar adag waayo dhalinyar badan oo waalidiintooda waxa jiro jaamacadii u awoodi waayaan kadibna waxay fursooyin oo shaqo iska raadinayo shaqadan markay camera waa iska sahlan tahay camera waxa iska soo gadanaya 200 300 oo kale iska soo gadanayaan marka kadibna shaqo fiican ay iskaga helayaan oo mataqaanay ayaga beledkoodii iyo waalidkoodna ay ku caawiyaan marka dhalinyarta qaar jaamacaday ka dhigtaanba oo lacagta iyada ka shaqeynaya jaamacad ka dhigtaan kuwa iskaga guursadaan kuwa magaalkooda iskaga joogaan iskaga baashaalaan deenin walba haddana macnaha fikradiisa iyo sidoo uu isticmaalo waayo Yaasiin Xuseen waxa uu ku waramay in markasta uu yimaado xeebta Liido uu sawir galo isagoona sheegay inuu jecel yahay dhalinyarada qaada sawirada sidaasna markasta sawir looga qaado dhalinyarada waxaan ku doortay farsamadooda oo maxaan ku raadayay tayadooda aad u sareyso oo runtii qof kasta wuxuu leeyahay maxaan ku raadayay choice-kiisa laakiin dhalinyaradena Soomaaliyeed aad bay maartay gacanta uga xiran yihiin marka tiraahdo qaabka tiknoolajiyada iyo casriga sida ay ula socdaan marka maxaan ku raadayay waa aad u wanaagsan ma sha Allah aad baa sawiro hore ay ka qaadeen oo aad cash dabcan sawiro fara badan oo hore liiga qaaday way jiraan oo aan ka helay Cabdiraxmaan Cabdi Cali waa wiil dhalinyaro ah oo ku shaqeysta sawir qaadista waxa uu inta badan joogaa Liido si macaamiisha uu sawiro uga qaado waxa uu ka hadlay dhibaatooyinka ay kala kulmaan shaqadan iyo nacfiga ay leedahay joognaa caqabado badan waa la kulannaa sababtoo ah kaamirada marba waxa ka halo waa zoomka bii gaarayo mar waxa gaaray mar doona al raaca doonta iska gudoomayso marka saas waa caqabadahaas jirta dadka u shaqeynayna dib xoogaa waa laga kulmaa dibkaas waxa ka mid ah sawirada lacagta in lagu horumarinayo oo lagu dhahay sawirada marka soo dirtid lacagta lagu soo diraa caqabadahaas way jirtaa maslaxaadka si kalsooni ma jirto kalsooni loo sii amal xidhaayaan sawirada kala bar lacagta qaado kala barna caawa amal lagu soo diraa saas waa maalintii walaahi marba si waa xeebta mar xashaqeynay 10 doolar mar labaad adiga jimcihi iyo khamiistii shaqo fiicanta marka jimcihi oo kala xaqabana 40 50 wixii oo calafkeena dhalinyaro badan ayaa shaqo ka dhigta qaadista sawirada iyagu yimaada xeebta Liido iyo agaarkeeda kuwaas oo dadka dalxiisayaasha halkan imaanay ka qaadaya sawirra kadibna ugu diraya si fudud WhatsApp-ka iyo goobaha muhiimka ah ay ku gudbi karaan Maxamed Ciise Koona M24 TV Muqdisho